بسم الله الرحمن الرحيم داوديال halkan waxaa iminka ila jooga oo aan kula kulmay magaalada Birmingham oo aan waraysi kula yeelanay gudoomiyihii hore ama barasaabkii hore ee gobolka Togdheer barasaabkii hore ee gobolka Awdal isla markaasina iminka ah la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dibadda mudane Cabdo Ayir oo ku sugan magaalada Birmingham waxaan wax ka weydiinay arinta Berbera iyo DB World markaasi Somaliland heshiiska dhex maray bal isagu sida uu arko heshiiskaasi oo dad fara badani ay aaraa kala duwan iyo fikiro ay ka qabaan balse majority-ga dadku ay u arkaan arin dalka iyo dadka u soo kordhay haye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii dalka Somaliland intii uu madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud uu hayay dhinaca horumarka wuxuu ka gaaray aad iyo aad ay guul weyn uga gaaray haddii aynu si yar oo kooban aan wax uga taabto dhaqaalaha dalku halkii uu yaalay maalintii uu qabtay iyo halka uu maanta yaala wax aad iyo aad u kala fog taasna waxay keentay inuu dalku dhismo inuu dalku shaqaalihiisu sanad walba uu kordho inuu dalku uu yeesho dhismayaashiisii haykalkii dawladeed oo dhan uu dhammaystirmo oo ah waxbarashadii in ay noqoto bulshada loo furo dan yarta in ay wax ku baran karaan lacag la'aan caafimaadka adeega caafimaadka in la gaarsiiyo degmo kasta iyo tuulo kasta iyo meel kasta laga dhiso adeeg caafimaad waxyaabahaas oo dhan waxa keenay horumarka iyo qaab dhismeedka dawladdu ay wax u wajahday ee u dhistay taasina waxay ku salaysnayd ballanqaadkii uu xisbigani uu doorashada ku galay markiisii horeba waanu ka dhabeeyay waanu ku guuleystay waxa kamid ah oo guulaha waaweyn anigu waxaan arkaa guul ka weyn inaanay jirin dekada Berbera maalgashiga ay ku sameynayso DDP Dubai arrintaasi waa arrin dalka u soo korodhay oo siyaasiyan iyo horumar ahaanba labada dhinacba marka la isu miisaamo u leh wax aad iyo aad u weyn u ah oo lafdhabar u noqonaysa dekada Berbera ballaarinteedu waxay hagi doontaa marka la suuro geliyo inay Afrikada dhexe oo dhan iyadu ay irmaan u noqoto irmaanayso oo ay taasina waxa ay keenaysaa in horumar badan laga gaaro oo shaqaale badan laga gaaro oo dhaqaalaha dalku uu kobco oo wax badan baan anigu qabaa intani ay fakar weyn iyo hawlgal ballaaran ay ku timi waxaana dhiirigelinaysaa in maalgashiga caalamiga oo dhan uu ku soo dhiirado oo ay indhahooda ku arkaan inay meel nabada tahay inay meel la maalgashan kara tahay in meel khayraad dabiici oo badan yaalla ay tahay taasaana keenaysa inaynu dad ka maarma gacan shisheeye aanu noqono taasaa keenaysa inaynu noqono dawlad la aqoonsan yahay oo calankeeda la aqoonsado iyo jiritaankeeda waxaan qabaa dadka ka hadlaya waa dad dan gaara leh uma arko inay bulshada inteeda badani waa dad fahamsan oo arka waxa maanta u soo kordhay ninka hoggaanka dalka ka waa nin dhaqaaleyaana waa nin ku xisaabtamaya halkii dalkani uu horumar ka gaari lahaaba waa nin garanayo oo fahamsan oo ku xisaabtamaya anigu ma arko dadka dhaliilaya dad u dhaliilaya wax xaqiiqo ah ku salaynaya waxaan u arkaa dad ama isle waxbaa laga helay oo hunguri wax ku doonaya ama ujeedo kale oo aan dalka kan rajo iyo wanaagtoona ka hayn ay yihiin waxaan qabaa waxyaabaha ugu badan ee xumeeya dalkeena inay tahay saxaafadda inay tahay TV-yadan badan ee soo kordhay inay tahay website-yada qaarkood ma wada dhaliilayo ma wada maagayo saxafiyiinta ma wada maagayo waa dhalinyaro reer Somaliland waa dad doonayo oo horumarkooda iyo danta jecel laakiin waxa aad iyo aad had iyo jeer quman qofku inuu aqoontan uu saxaafadda u leeyahay waa inuu ku badbaadin karaa danta dalkiisa
waa inuu ku ilaalin karaa danta dalkiisa iyo dadkiisa waa inuu ku ilaashan karaa ma aha wax kastoo aad leedahay in aad banaanka keentid inaad cadowga u fasirtid inaad tiraahid tani maanta aynu ka hadlaya qodobka aan ka hadlaya dekada salka ku haya maaha mid talo cidna looga baahiyay hoggaan buu dalku leeyahay hoggaanka dalkuna wixii uu doonayay ee dalka la doonayay ee wanaag ahaa ee horumar ahaa ee barwaaqo ahaa uu ku wadaa ciddii uga dambaynaysana halkaasun bay ka sii wadaysa oo ay ka ambaqaadi doontaa insha allahu tacaala laakiin waxaan filayaa madaxtinimada sida imika rajadu ay tahay imika inoo muuqataa 27 March ayaa doorashada la gelaya wareejintuna waa April inta muddada ka xigta waxa weeyaan ilaa 9 bilood ilaa 10 bilood maba ku dhamaan karto dekadu dhismaheedu ilaa muddada ciddii kale ee madaxtinimada hanata ayuunba halkii ka sii wadaysa waa wax la wada leeyahay waa wax mudan in la wada ilaashado waa wax aan u baahnayn dhaleecayn waa wax cadowgu ka naxay cadowga aynu leenahay oo dhan ayaa ka naxay maalgashiga la maalgashanayo dekadii berbera ee ballaarinta lagu samaynayo ayaa cadow badani ka naxay haddaad adigoo gudihii jooga aad cadowgii u loogtid waa nasiib daro waa aqoon xumo waa aqoon daro waxaan anigu uga jeedaayo aan hadalkan maanta aan u leeyahay waxaan arkay marka dad badan oo ka hadlaaya arrintaa qaarkood waxaan arkaa dadan calooshooda iyo qalbigooda iyo uurkooda midna nadiif ahayn waxaan leeyahay ilaahay ta wanaagsan ha tuso asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu